haddaad caawin kartid iikaad haddaad caawin karto soomaa baraadarkaygii ajar baa ka helaysaa soomaali baan kula qaybsamaynin mudulood baan kula qaybsamaynin abgaal baan kula qaybsanaynin anoo in adeerkaa baan kula qaybsanaynin waxa adiga sadaqaysato aday xag ilaahay اوكي سيد عاده وكبحي مدحونا سيه مركب مدحونا سيه محسن سدو براد محسن سدو اللي اسكو هندده ما اها او اللي يراد نو قبيل كوا فيري هل وسو غبغبينيا waa dagaya amoro waa dagaya waxaan rabaa kuwa dhaxaya noo qabiil soo qoraya wariyaa nabigiiba horteena lagu aflagaadeeyay noo qabiil maxaa u soo qor weysan markaas wariyaa diintii ilaahay baa Abdullah wahaba shay hadalka si madaxweyne soo dhaw ika adniyo waa soo gabagabeynaya dhagayso wariyaa diinta iyo nabiga wax ka fiican miyaa jira maanta shalay markii diinta la aynayay horteena lagu aflagaadeynayay noo qabiil maxaa loo soo qori waayay hadeer baa shay noo qabiil Abdullah يكاسم nin maqan ha u tub raacina waa khalad naga daa waa maqan yahay ninku ha u tub raacina madaxweyne soo dhaw qof aan ka yeelay warnaar inaa horta Abdullah Muuse ka galdeeynaa barnaamijka laga hadlayo horta in salaamaya islaamka cali cadaawe dhagaweyne madaxana furan yaamooraba horta maariyaal waxaan arkaa dhalinyaro horta si dhimanaysa qalbiyan u dhimanaya oo wallahi inaan been idin sheegin 34 qol baan arkaa gabar geeri u taalo oo ilmo yar ka dhintay baa la falanqeynaya marka lagu kala kacsanaya qolalka koomba taala maariyaal ma fiicna waxyaalaan oo kale waa la xifaaltama baraha bulshada dadku wax way sooran karaan dadku qabiilin way isku qaban karaan way iska caadi waa madal dhalinyaradu timaado oo lagu xifaaltamo way wallahi oo billahi laakiin waxyaalaha qaar kood laguma kaftamo gabar Soomaaliyeed oo maanta xaaladda ay ku jirto aanan ogeyn oo geeri u taalo baad falanqeynaysan qolo ka furanaysaan haddii rabti inaad caawisaan gabadha way soo gali doontaa baraha bulshada ama nambarkeeda la idin siinayaa ilmaha caawiya waxyaalaha kaftanka iyo waxyaalaha kala saara arrinta ari serious way gabar Soomaaliyeed oo dhex timid way idinkuna waxa u aragtaan arrin ciyaara oo la macaan qol lagu soo furo lagu kala kacsanayo hebel waxyaalahaas kala baadil weynaa birito familkaaga ku dhici kartaa walaashaa biro u baahan karta Soomaaliya oo dhan ma ogid inaaro marka ma fiicna sawirada noocaan inay ku dhacaan waxyaalaha noocaan ina qabiil ka dhigto ma fiicna anigu nin kaftama oo qabiiliin u kaftamaanahay sidaas oo ay tahay waxyaalahan kala baadil baan arkay inaan qol soo furto anigu waxa arkay rag intay qol soo furtaan dhahayo gudiga anaa madaxweyne u noqonaya anaa u noqonaya qabiilkana noqonaya qabiil waxyaalahaas kala balfiiri gabadha hadda rabtiin inaa caawisiin ilaahay miisaanka xasanaadka rabtiin wax ku dirsatid TikTok baa leedahay anaga bishii 8 baan loo keenay anaga gabadhan meel bay noogu timid anagoo tiro badan waxaan siin karnay waan siinay maantana walaashan way wax rabnaa siinayna hawiye iyo daarood iyo dirba isku jirnay niman isaaqa ku jiray niman hawiye ba ku jiray kulligood qol baan wada joognay ma duushaayo markii maar waxaan qabiilka ka dhignina gabadhuna qabiil male waa gabar walaasheena muruga u taalmaantay say dareemayso garan mayno wallahi billahi oo tallahi qofku markii waalidkiisa ay dhintaan buu dareemi karaa xanuunka gabadhaas ay dareemayso ama awlaad aad dhashay dhintaan idinkuna waxa rabtaa inaad views ku raadisaan hadda marka yaa la hadlaysaa views ku raadinaya marka maana ku raadinaya dadka qolalka soo furtay oo dhan inaad kulligood